بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa telefishinka caalamiga Universal Studio ku yaala London si toos ah ayaad u dheehanaysaan waa barnaamij kamid ah barnaamijyada aan u aragno inaan dala wadaagtaan adinkoo dacallada adduunka jooga daawadayaal barnaamijkani waxa uu daaran yahay ama uu ku saabsan yahay guud ahaanba dacwadda dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya waa laba wadan oo daris oo ku yaala geeska Afrika waxay leeyihiin xuduud dhinaca bariga iyo waliba midda badda ah marka Soomaaliya la fiiriyo dhinaca badda waa wadanka labaad ee ugu xuduudda badda dheer ama ugu xeebta dheer wadamada guud ahaanba ku yaala qaaradda Afrika marka laga reebo wadanka South Africa ayadoo haddaba ay arrimahaasi jiraan ayaa dalku waxa uu ahaa dal soo maray marxalado kala duwan waa Soomaaliya tan iyo 1960kii iyadoo xuduudaha caalamiga ah ay yihiin kuwa markaasi nidaamsan oo adduunyada xuduud dhinaca badda ah ila hawada iyo waliba dhinaca bariga ay leedahay oo ay tahay laga maarmaan qawaanintaasi caalamiga in la ilaaliyo way jiraan wadamo adduunyada ka tirsan qaaradaheeda kala duwan oo ku murmo xagga biyaha ama ku murmi kara xagga bariga laakiin waxaa loo saaraa nidaamyaal caalami ah iyadoo qolo walba dacwadeeda ay soo dhigato muddo dheer kadibna markaas go'aan laga gaaro haddaba dalka Soomaaliya oo kamid ah wadamada dunida ku yaala kuna yaala goob istiraatiijiya marka la fiiriyo caalamka qaabka iyo sida dhismuhu uu yahay iyo juqraafi ahaan ayaa culays xoog leh oo siyaasadeed waxa uu ka jiray guud ahaanba dalka tan iyo intii ay burburtay dawladdii dhexe 1991kii wixii markaa ka dambeeyay Soomaaliya waxay ahayd isku maqanta lagu maqan yahay oo yaa isku maqan iyada ayaa isu maqan oo isu muuqatay oo qabaa'il iyo kooxo iyo danaystanimo u dagaalantay taasoo keentay muddadu inay ku dheeraato oo maanta 2021 iyadoo la joogo oo dawlad federaali ay jirto dawlad kale federaali ay ka horeysay 3 kumeel gaar ay ka horeeyeen burburkiina uu ka horeeyay wali aan lagu kalsoonaan karin deganaanshaha siyaasadeed marka la fiiriyo muranka dheeraaday ee maraha loo waayay ee u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed iyadoo haddaba arrimahaasi ay jiraan ayaa Kenya waxa ay tahay mid ay ku nool yihiin dad Soomaaliyeed kuwaas oo isugu jira laba qaybood qaybi waa dad isir ilaa isir ama abka ab iyagu deganaa oo markaas ay dhacday dhinaca waqooyi bari ee Kenya oo kale oo ah dhinaca xuduudda dalka Soomaaliya ee koonfurta in markaas xuduudda ay ku taalo kala qaybintii gumaystuhu uu kala qaybiyana ay dadkaasi noqdeen kuwa iyagu halkaa ku yaala laakiin weli suurtagal aanay noqon juqraafi ahaan iyo nidaam ahaan dalka Soomaaliya inay raacaan burburkii kadib 1991kii qaxooti aad u fara badan ayaa u hayaamay dhinaca Kenya maadaama oo wadaag Soomaaliya ay la ahayd colaadii sokeeye ee dhacday taasina ay keentay qaxootigii laba qayb uu noqday qayb iyagu la geliyay amaba degay xeryo kala duwan oo magacyo kala duwan loo bixiyay taasoo jabciyada qurumaha ka dhaxaysay iyo urur kale oo caalami ah ay kula socdeen waqtiga ka dambeeya iyo qayb joobkooda waxoogaa uu ku jiray oo markaa ganacsi bilaabay maantana la arkayo sida muuqata ee dhinaca ganacsiga haddii ay tahay dhismayaasha dhaadheer iyo weliba xoolaha faraha badan ee dadka Soomaaliyeed 30 sano ugu dambeeyay ay ku beereen lama oran karo dad Kenyaani Soomaaliya gudaheeda ma joogaan oo dabcan dad badan ayaa ka xoogsanaya muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo labada dalna oo wadaag ay ahaayeen 3 sano ayaa u dhaxaysay xilligii xorriyadda labada dal 1960kii dhinaca Soomaaliya 1963diina dhinaca Kenya madaxweynayaashii kala duwanaa ee soo maray dalka Soomaaliya marka laga bilaabo Allah u naxariistay Aadan Cadde Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre intuba arrimaha Soomaaliya iyo Kenya kuwa waqtiyo kala duwan ka hadlay ayay ahaayeen oo qoloba marba heer ay soo gaarsiisay intaas aan sheegay ee 30 sano ee barwaaqadu ay jirtay ama la oran karo dawladnimo isku xigtay ayaa jirtay intaan dagaalkii burburka la gelin Kenya ma aanay ahayn dal marba u hanqal taagi karaya arrimaha dalka Soomaaliya ama waxa dhici karta inay arki karayeen difaac xoog leh oo geeska Afrika oo badweynta Hindiya kulaala Soomaaliya inay ahayd taasi waxay ku muujinaysaa inaan marna wax culays aanu imanin marka la fiiriyo labada dhinac diblomaasiyadduna ay ahayd mid aad iyo aad u sareysay maadaama Soomaaliya oo ahayd wadan aad u xoog weyn xagga siyaasadda dibadda iyo xagga gudaha intaba laakiin burburkii kadib hanqaltaag badan ayaa ka yimid wadamada dariska iyo kuwa kaleba kuwaas oo ku soo qamaamay dhinaca badda iyo weliba dhinaca bariga waxaanse meesha aanay ka marayn qolo kasta oo ajnabiga oo dalka Soomaaliya ku qamaamtay waxa horbooday oo hor socday dad Soomaaliyeed oo magacyo kala duwan wata ujeedooyin kala duwan iyagu lahaa haddaan haddaba eegno arrimaha dhinaca badda iyo iminka iyo muranka waxaa dhacday in dawladda Kenya ay sheegatay dhul dhinaca badda ah oo xuduudda ku yaalo oo loo arkayo inuu barwaaqaysan yahay dad badan oo Soomaaliyeed waxay u arkaan hadalka waqtiyadii ugu dambeeyay dadku ay ku hadaaqaan oo ah ku qabso ku qadimaysida iyagoo arkayay dalka Soomaaliya maadaama dawladihii ka jiray ee ku meel gaarka ahaa iyo waliba arrimihii jira ay ahaayeen kuwa ay arkayeen inay itaal daran yihiin marka loo fiiriyo iyaga laftooda aan wax culays ama dagaal sokeeyo aanu soo marin
taasi waxa ay keentay inay iska samaystaan nidaam ah inay dhulkaas iyagu iska leeyihiin arrin ayaa jira la isku soo qaaday oo dhinacii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee 2009 ee mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo golihii wasiirada iyo ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake arrintaas markii bulhankeeda iyo dhawaaqeeda la maqlay wixii ka dambeeyey waxaa dhacday dowladdii federaalka ee dalka soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalka ka hana qaaday bishii sebtembar 2012 markii la gaaray 2014 dacwad ayay u gudbisay maxkamadda dhinaca dacwadaha ee caalamiga ee ku taalla magaalada Hague ee waddanka Netherland dowladdii xasan sheekh maxamuud dacwaddii ay bilowday oo socota ayaa dalka doorasho ka dhacday 8 bishii February 2017 waxaa madaxweyne noqday madaxweynaha iminka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dowladdaas Farmaajo halkii ayay dacwadda ka sii waday dhowr jeer ayaa waxaa dhacday in Kenya xaggeeda uu ka yimid codsi iyo culays ah in dib loo dhigo dabcan siyaabo kala duwan ayay dadka Soomaaliyeed u kala fasirayeen marka arrimahaasi ay dhacayeen waxay arrintu soo gurgurato soo socotaba wixii la ballamaba iminka ballan ayaa jirtay bisha soo socota ee March oo bisha 3 2021 hadal ayaa ka yimid dhinaca Kenya oranaya xaalku ma qumana wax kasta ayaa dhici kara haddana dib ayaa loo dhigayaa iyadoo dhinaca kale ay u muuqato inay isu arkaan dalka Soomaaliya in habacsanaan ay ku jirto ama siyaasiyiintooda aanay ahayn kuwa si quman u wada socda ama ay dhici karto dad badan oo siyaasiyiin iminka iyo kuwa aan ahaynba in dhagahooda ay u nugul yihiin marka la fiiriyo dalka Kenya laakiin dowladda Soomaaliyeed ee iminka jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo way ka jawaabeen arrintaas wasiirka dhinaca warfaafinta ee dalka Soomaaliya mudane Cusmaan Dube ayaa shir jaraa'id ku qabtay maalinkii maanta magaalada Muqdisho isagoo sheegay in mowqifka dalka Soomaaliya uu yahay sidiisii bisha Maarchna Soomaaliya ay diyaar u tahay dacwadda qaybteeda inay ka qaadato sidii ballantu ay ahayd oo aanay jeclayn madaxana ay Soomaalidu ka ruxayso in dacwadda dib loo dhigo waliba wasiirku waxa uu ka dhawaajinayaa siday u arkaan Kenyaanku in Soomaaliya ay tacbaan tahay iminka laakiin dad badan oo Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda jooga ayaa u arka Soomaaliya inaanay liidan si kasta oo ay culays u jiro inay haddana dadku yihiin dalkuna uu dadkii yahay hadalkii warbaahinta iyo dadka wararka qaada uu siiyey wasiirka dhinaca warfaafinta ee dalka Soomaaliya mudane Cusmaan Dube waxa warbixintan inooga soo diray Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okay waana tan wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay kiiska badda ee hor yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka kadib markii Kenya ay dalbatay in mar afraad dib loo dhigo Cismaan Dube ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka Soomaaliya marnaba ogolaan doonin in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda muranka badda ee ka dhex oogan Soomaaliya iyo Kenya dacwaddii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ilaa maanta 2022 taagan maalin walbana sidaan shoogi doona ay dib u dhigaysay dowladda Kenya ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la mudeeyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka oo Khamiisa 11 bisha Febraayo 2021 taariikhda ay ku astaysan tahay waxay maxkamadda cadaaladda adduunka u qortay waraaq ay dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay diyaar tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la mudeeyay 15 bisha Maarch sanadkan 2021 dowladda federaalka Soomaaliya saaka oo Khamiisa 11 February 2021 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15 Maarso 2021 isla markaana aynay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo afraad iyo shanaad Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay inay ka marmarsiyoonayso galista dacwadda iyo in Kenya ay ku doodayso in dowladda waqtigeedu uu dhammaaday waxaana uu daliil u soo jeediyey wasiirka warfaafinta siyaasiyiinta Soomaalida oo sheegay inay ka gaabsadaan mar walba ka hadalka muranka dhinaca badda oo waxay doonayaan inay ku disqualified gareeyaan keeskeena Soomaaliya dawladda kama jirto horeba waxay u doodi jireen Soomaaliya waxa jooga argagixiso iyo burcadbadeed maantana waxay rabaan inay yiraahdaan dalka inta leeg ee dawladda
ee sharciga ah ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh ee garsoorka leh inay yidhaahdaan dowladda kama jirto iyagoo ka faa'iidaysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiyiinta qaar ay ugu loogayaan ama ugu gowracayaan qarannimada Soomaaliyeed cadowga. cabdicasiis ibraahim axmed okey TV Universal magaalada Muqdisho. wahagaagkaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dalka Soomaaliya mudane Cismaan Dubo oo ka hadlay arrinka iyo mowqifka dowladda Soomaaliyeed ay ka taagan tahay arrinta dacwadda iyo inaan dib loo dhigin. marka la fiiriyo dalka Soomaaliya dadka Soomaalidu waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dantooda ay fiican tahay ama ah dad wadaniyiin ah taas oo laga dhadhansan karo ama laga arki karayo taariikh ahaan xilligii halganka ee gumaysiga lagula jiray in heryadiisa la iska tuuro ururada markaa halganka ku jiray waxay ahaayeen kuwa ay ka go'need inay dhiig u daadiyaan laakiin ogaada Soomaaliya intiina barnaamijka daawanaysa waxaa jiray kuwo iyagu cadowga amaba dadka markaas dalka gumaysanaya gumaystaha la socday oo u sacabtumay waa taariikh qoran kuwaas ubadkoodii way joogaan maanta qaarkood dabcan tubti aabahood awoowahood ayay marayaan oo iyagu laftoodu sidii waalidkaas ayay u sacabtumayaan taasina marka waxay keenaysaa ayaan darro ku dhacaysa ubad maanta yaryar oo berritoola marka la arko hebel yaa dhalay hebel waa kii gumaystaha la soco jiray waa kii halgamaaga ahaa ee fiicnaa waa kii waddaniga ahaa sooma fiicna inaan magaxumo loo samayn ubad yaryar oo aan waxba galabsan Soomaaliya waxay isu aragtaa inay tahay dal dhib badan iyo culays badan la saaray laakiin dadkeeda mar walba ay ku jiraan dad aad u wanaagsan oo u arkaya danta guud inay mar walba ka hormariyaan dantooda gaar ahaaneed waxa ayaan darro ah in dad badan oo Soomaaliyeed oo siyaasadda ku jira ama ku jiri jiray inay tahay inaysan la soco karinba xaaladdu sida ay tahay iyo dalkan cidda iskale inaanay isweydiin Soomaaliya ninka madaxweynaha ka ama ra'iisul wasaaraha ama ninka ka ahaan jiray ama ka ahaan doona Ilaahba og intuba dalka ma laha dalka waxa iskale dad Soomaaliyeed oo magacoodu Soomaali yahay dhulkuna waa dhul Soomaaliyeed haddii marka ay ayaan darro noqoto in dadka qaar ay isku xiraan waxa ay necab yihiin iyo dalkan ayaan darro weeyaan waxa qoman marka in la baraarugo fikirkaaga fayow daawada ka dhiibo sidaad u aragtid dacwadan iyada ah ee markii shanaad ay isku dayayso Kenya inay dib u dhigto iyo aragtidaadu sida ay tahay laynka telefoonka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام عاقم الدقيق ha walaal waa ku soo dhaweynaya codkaaga kor u qaad magacaaga محمد بالير هذا وحن شوقها بلجا مقرتين aad iyo aad maxamed sideed u aragtaa arrintan Kenya iyo marar badan dib u dhigidda dacwadda والله dib u dhigida horta way jirtaa inay Kenya dib u dhigtay balse wax garab lagu siiyay inay dib u dhigto waayo ma aragtay dawladda hadda jirto dawladda Xasan Maxamuud ee la soo dhaafay waxay ku dadaashay in maxkamaddii meel fiican ay soo gaarto ummadana xilligaas si fiican bay ula socotay maxkamaddii waliba iyadoo live la soo dejiray say wax u socdaan hadda wax baa la qarqarinayaa farmaajo dawladdiisii saan ka filaynay maxkamadda hadda xilligaa inay gaarto wallahi waa wax aad u kala duwan oo maaragtay yani aad u kala fog xilligan la taagay waxay mar hor in lagu kala baxo maxkamaddii laba maree dib u dhigeen saasay tahay anaga garab ku siinay Kenya inay dib u dhigaan oo aqbalnay haddii aan aqbal leen maxkamadeeni saacadaaneetii wixii waa lagu kala bixi lahaa tan kaloo xigtaa waxay tahay waxaa la diray dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee maxkamad u doodayay sidii gabadhii Mona Sharma iyo xeraaliyihii qaranka ay markaas u doodayay yani maxkamadda waa la kala diray hadda wax u doodaya xitaa ma naqaano maxkamaddii thank you taa haddaan kaa dhex galo aad u mahadsan tahay muhiim ma aha qofka la diro maxaa yeelay waxaa jira dad mar walba sharci yaqaan ah oo ay tahay in loo wakiisho dowladda markaa joogtana laga rabo waa jirtaa sidaad sheegaysa dad u doodi jiray dabcan haddana Soomaali iyadoo Muqdisho iyo gobolada iska joogta maxkamadda Hague cid wakiil ugama ah lama oran karo dabcan barnaamijyo ayaan ku soo gudbin karnaa laakiin in la diido in dib loo dhigo in la diido iyo in la yeelo tee wanaagsaneed ay kula tahay yani in la diidaa wanaagsaneed oo Kenya diyaar uma aysan xilligaas hadda anigii oo isku dhex yaacsan oo maartay doorashadan xitaa si xila baa leeyahay maxkamad baa la tagayaa oo maartay bisha markay dhamaato maxkamaddii loo fadhiisanaya taas waxa waaye waxaan diyaar loo ahayn waaye haddii saas tahayna kolley aniga waxaa rabnay dowladda inay nala hadasho shacabka ee la hadasho meesha wax maraan noo sheegto dabcan haddii dowladdii ay iska aamusan tahay taadi kale waxaan u fahmay in dowladdani Axmed Madoobe si loo ceeriyay darteed heshiis ula gashay Kenya ugu dambeyn markii lagu booday oo la yirina maartay meel cidla ay taagan tahay taas aragtidaada waaye taas waa aragtidaada aad u mahadsantahay waa ku soo dhaweynaya laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمد أيوة السلام aad iyo aad mid lamida soo dhawow magacaaga halkaa joogto walaal نيو مقعي علي بالله وحن جوغا مقالة برميهم
aad baan kuu soo dhaweynayaa sideed u aragtaa arrinta dacwadda iyo codsiga Kenya iyo diidmada Soomaaliya iyo aad iyo aad baan uga xumahay maanta xaaladdeeda meesha marayso waxa weeye maxaa la jiray meeshan anagu istagnay baan taaganahay Kenya waxa weeye weligeed way damacsanaan dhulka Soomaaliya iyo geega Soomaaliya waxay damacsanayd laakiin anaga isku jeednay anaga maxaa la jiray isku xoog weyn waxaana weeye Soomaaliya waa ku taageersanaa dawladda inay arrintaas la wado weligeedna la wado aysan istaagin waxaan halkan fursadan ka faa'iideysanahay u jeedin lahaa maxaa la jiray nimanka mucaaradka shaaga ah waxaan oran lahaa farmaajo waa markii maanta sida wasiirka uu sheegayba waa markii daqiiqad socdaa waraaqad la soo radaan waxaad samaysaan mu'tamar saxafi baad samaysaan waxaa maanta waxay ahayd inaad ka soo jeedisaan oo hadashaan oo tirahdaan waa kuwa taageersanaya dawladdeeda maxkamadda waa in la tago weeye Kenya dhulkayga badayda ku socodbaysana waa ka soo horjeednaa laakiin waxay ku tusaysaa waxa la yiraahdaa sukuutu min ar-rida laakiin waxa dhici karta adoo raaliya maadaama ay dawladdu maanta ka hadashay dabcan ragga kale ee siyaasiyiintii hore ah waxa dhici karta inaan la degdegin oo ay berrita ka hadli karaan miyaanay kula ahayn berritaba waa jumca waa laga hadli karaa niyaho arrintan arrin loo kaadin karaa maaha aniga ku hadlayo waxa weye ninkii runtii waxa weye waxaan dareemayaa dulinimo baan dareemayaa meel oon dhiigayga ma controli karo runtii marka runta kuu sheego waxa weeye Kenya waxa dhulkayga waa way haysataa dadkaygii baa la haystaa maamul baa la haystaa aniga especially waxaan kasoo jeedaa gobolka Hardarsaan ee maamulka duqeysan kasoo jeedaa anigu farmaajo waxa weeye isku meel baan ka wada laakiin anigu dankii ma li farmaajo laakiin wadanka le ma garata aad baa u mahadsan tahay adigoo jooga Birmingham barnaamijka ka qayb galay aad uga xun sida aad sheegtay xaaladda laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعيب وفاضمة وحان كنولا ودن كجرمك جارهان مقالة مونيج aad baan kuu soo dhaweynayaa Faaduma barnaamijka waa la socotaa arrimaha dacwadda badana dabcan waa la socotaa jaraa'idka waa akhrisaa telefishinada waa daawataa maxaad isleedahay codsiga Kenya iyo diidmada Soomaaliya والله horta aad aan uga xumahay in horta dacwadda marar badan dib loo dhigo ma garatay hadeertaan in Kenya haddana tiraahdo dib ha loo dhigo waxay ceeb ku tahay horta midda koowaad maxkamadda midda labaad waxa ayada Kenya nafsiyan ceeb ku tahay midda kaleetana anaga ceeb nagu taho waayo mar walba markay Kenya tiraahdo badda dib ha loo dhigo anaga si weyn calaashaan aanan wixii u tixgelinayno calaashaan aanan aan uga falcelinayn ma garatay oo dhaheena maxkamadan ku raacnay go'aankeeda ma garatay waa gartay Soomaaliya hore waxay u tiri hal walba meesha isticmaal ugu qalaa ma garatay aad ugu xumahay midda kalena aad u niyad jabsanaa walaa bilaay badan waxay ugu heesaa kurba aad u weyn ma garatay meel ogahay xanuunays ma garatay waa dareemi karaa waayo anaga waxaan nahay ciyaalkii dagaalka ku dhashay ku soo barbaaray rajaan lahayn hamiyaan lahayn markaad ay siyaasadda waddanka ka jirta iyo qaabka see wax u socda marka aragto niyad jab weyn aa kugu dhacaya ma garatay si fiican marka badan horta ilaahay wuxuu qoray uu ii sheeg waxa loo xul cashriga ku qoray ayaa dhacayo badan ama anagana loo siixaya ama ayaga loo siixaya laakiin ani waxaan codsan lahay shacabka Soomaaliyeed iyo meediyaha dadka waxgaradka culumada dadka ii sheeg oo bulshada oo magac weyn ku leh inay u kacaan ee wacyi geliyaan ee dadka kiciyaan aan hadeertaan lagu mashquulin siyaasad iyo waxaan loo joogin waxaan ugu soo socdo waa hir aad u weyn oo la iska celi karin hadhoodi markay wixii dhacaan in la yiraahdo ta u dhaceen waxaa ka wanaagsan in hadda laga sii hortago ma garad oo la sii suubiyo wax la yiraahdo aad baan ku salaamayaa ma sha Allah waa ku hambalyeynaya gabar da'yar oo ereyga ay ka dhawaajisay oo culus yahay dad badan oo ku dhali karaana oo maanta nool oo barnaamijka inay daawan ay dhici kartaan aanay fahmi karin waxaa tiri hir weyn oo culus baa nagu soo socda ma ay fahmi karaan kuwa 60 jiryaala 50 jiryaala ayaan fahmi karin oo ku daawanaya ma sha Allah aad baad u mahadsantahay hirka waxaan ka wadaa oo dareemiya culays waxaa la yidhi qofku markuu kaa rabo neef area wuxuu ku weydiistaa neef lo ama garad hadda Kenya waxay leedahay baddaasaa rabaa si ay badda ku xalaaleysatay hadda waxay leedahay Soomaaliya waxaan isku haysanaa dhul weligan isha aniga Kenya iskuma qabsanin dhulaa la siiyey oo dowladihii oo gumeystii siiyey dhulkaasoo weliba anaga xaq ah u lehna Soomaali deganta Soomaali deegaankeeda too anaga leenahay tiya looga aamusnaay hadda waxay leedahay dhulan ku haystaa Soomaaliya laakiin adigoo da'yar ma sha Allah waxbaad akhrisaa Allah ku barakeeyo ma dhici kartaa in dad Soomaaliyeed ay horboodayaan
in ay kenya dhul sheegato oo damacaas kenya la geliyo la yidhaahdo annagaa idinku taageerayna arrintaa ka waran way jirtaa waayo aniga waxaa aada uga calool xumadaan madaxweynaha ama maamul goboleedka jubbaland ninka xukumo ninkaas aniga beema ku sheegay muddo badan nin waxaan u arki jiray wanaagsan oo wadaniya siduu u hadli jiray hadaladiisa macaana aada u taageersanaa laakiin maayahan dambe markaan arkay kenya inuu u janjeero oo haddana kenya ay leedahay dhulay soomaaliya nala haysataa oo asiga gobolkii ay kenya xuduudka la lahayd uusan ka hadli karin oo dhihi karin dhulka anaa madaxweyne ka ah geesnimadaas uusan haysanin aan aniga fahmi lahay marka asigan inuu hadlo way fiicnaan lahayd uu yidhaahdo kenya anaga dhulkan adiga hadda aa sheeganaysa anaa madaxweyne ka ah anaa ka taliyo marka cabsida asiga heesan anigu waa dareemi karaa oo meesha ciidamo kenya joogo waa dhici kartaa inuu ka hadlo waa dhici kartaa yaan la degdegin waa dhici kartaa soo ma inuu ka hadlo waa dhici kartaa waana rajeynaa inuu ka hadlo waxaana dhihi lahaa mucaaradka midaan dhihi lahay mucaarad waa la noqdaa aniga waddankan aa joogo mucaarad badan uu leeyahay dowladda laakiin ma dumiyo dowladdu dhisaa ma garatay mucaaradka waxaan leeyahay maadaama fursadda aan ka faa'iidaysana waxaan leeyahay walaalayaalo macaano waddankan meel fogaa laga keenay wallahi aniga niyad hadda ii dhisan oo ah waddankayga markaan arko maalin walba waa farxaa ilmaheygana waxaan jeclaa mustaqbalka inay meesha ku barbaaraan ay ku koraan waxaan dhihi lahaa mucaaradka waan idin baryaa waa idin baryaa waddankeena hadda rajo fiican uu leeyahay meel fiican uu mara waddankan yaa dib loo celin waxa kursigaasi ilaahay hadduu kuu qoro waa helaysaa wuxuuse ilaahay kuu qoro ma helaystaas inay aaminaan ee waddanka khashkhashaada ka dayaan madaxweyne farmaajo shalay codow ku yimid codowna ku baxaaya ama codow kusoo noqonaya hala sii jaaniskiisa bisaan leeyahay waddankana ha loo hogaansamo wixii cadowna ha laga celiyaan leeyahay warkayga aada umahadsan tahay waxaan qiyaasaya haddaanan qaldanayn barnaamij hore aa ka qayb gashay waxaad tiri waxaan ku soo koray soomaaliya iyadoo hoobiyayaal habeen iyo maalin ay dhacayaan saasaan u malaynaya laakiin ma hubo barta u dambeysay ee waddanka la maraa la yidhahda dagaalaa socda waana kusoo barbaaray wallahi inaan been kuu sheegaynin cagmadhigow aniga dagaalka etoobiya waa joogay aniga waxaa ahay ciyaalka soo tahriiba oo libiya soo mara ahay weliba ma garan jarmal kusoo galay rafaad waa soo aragnay aniga waddankaas habeen iyo maalin hoobiyaa nagu socday dagaalaa nagu socday weligay iyo alehey noloshii intaan noolaa waddan dowlad ka dhisan tahay jarmalaa iigu horeysay iyo waddamadan kala soo maray weligay ma arkin waddan dowlad ka dhisan mana aqoonin aada umahadsan waxaan rajeynayaa adiga carruurtaadu dalkii oo nabada iyo dadkii oo nabada haddii alla ka dhigo aada umahadsantaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam walaal وعليكم السلام ورحمة الله عقب لي أدنى كون سلام يا mid lamida waa soo gudbiyey magacaaga halkaad joogtid magacayga Chief Farxaan Maxamuud baa la dhahaa waxaan joogaa Nairobi si fiican meeshii waxaad joogtaaba codsiga oo ka yimid in maxkamadda dib loo dhigo haye ma la socotaa adiga warqadaas waa la socdaa haye waxa weeye horta waa taageernaa Soomaaliya madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo mar labaad inaan soo laabtaan jecelna ma garat waa gartay marka adigu hawshan badana waxa weeye waa in dib loo dhigaa marka doorashada ka bacdi aan jeclaan lahayn ma garat waa gartay in ka bacdina wada hadal badan markaas la sameeyo ma garat dareenka shacabka Nairobi jooga ka waran aragtidaada adiga intaa ka warqabtid wallaahi adigu dadku aad bay u soo dhaweynayaan in Soomaaliya waxa laga haysto in la siiyo oo badda qaybteeda geeskeeda ma garat aad iyo aad dadku aad bay u soo dhaweynayaan mar baa jecelin de qof Soomaali waa dareemaysaa inuu ma jecla de qof waa dareemaysaa ma garat aad iyo aad marka farmaajana madaxweyne farmaajana uu soo celiyey de heerka ay Soomaali maanta taagan tahay meel fiican maraysaa ma garat aad baan u gartay adiguna waad garataan filay waa wada garanay waa ku salaamayaa adoo Nairobi jooga laynka kale ayaan u gudbayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo salaamu calaykum walaal cagmadhiga walaal waa ku salaamayaa iyadoo waqti jirin adiga iyo teamka Universal dhammaan si fiican maasha Allah waa kaa guddoonnay soo bilow hadalkaaga iyo fikirkaaga walaal fikirkayga iyo hadalkaygu waxa weeye horta nin dhalinyaro aan ahay oo Soomaaliyeed waxa maanta soo yeeray oo wasaaradda warfaafinta wasiirkeedu uu sheegayna dadka baraha bulshada kala socda waa kolba ku jira koodhe si fiican horta sideedaba Soomaalida waxaan rabaa inaan hal mid inta hadda daawanaysay inta uu gaarayo videogaanba inaan u sheego waxa weeye horta waxa aynagu aan leenahay inaga iskale si fiican waxa aynagu isku haysanana waa waxa aynagu leenahay isku haysanana labay kala tahay aad iyo aad marka haddii maanta oo dhan lagu doodo musharaxiintu
waxay ku saxsan yihiin inay aamusaan iyo dawladduna waxay ku saxsan tahay inay badda dhiciso. Dawladdu waa shaqadeeda inay badda dhiciso, ayadaa waddanka mas-uulka ah. si fiican. oo maanta musharax loogama fadhiyo oo dee intuu heeg tago dhaho baddayadii shacabkaasu la mid yahay. waa gartay. tan kale dawladdu hal mid baa raayaan dadku u sheego manhajka Soomaaliya haddeertan 2020 ciyaalku ay ku galeen iskoolka waxa badda Soomaaliya ku qornayd ciyaalku ay ku barteen 2800 iyo wax raaca. haddii dawladda federaalku ay manhajkeediina ay ku qortay 2800 ayna dhahayso baddii waxaa qaadatay Kenya soo lama rabin hadday macnaha hadafkeedu cad yahay dawladda federaalka soo lama rabin inay dhahdo baddeenu 3333 weeye aad iyo aad oo ay meel gooni ay iska taagto ay dhahdo wixiina lagu haysta laakiin baddeenu waa intaas si fiican. marka dadkii waxaa laga kala dhigayaa laba dhinac oo hadba meel baa la iska tusayaayo Soomaalidiina aynagana mataqaanaa burburkii halka wuxuu laga dhaxlay waxa weeye mataqaanaa akhlaaq daro. midda ku saabsan dhirarka badda hadday gees ka soo bilaabato ilaa gees hadday dhammaadkoo kale ahaan lahayd ayaa taa adiga aad tiri 2800 laakiin dhammaad maaha. Kenya dabcan biyuhuna dhexday ku jiraan lama kala goyn karo oo laba gees la isaga soo qabanayo. fikirkaaga ugu dambeeya Soomaali maxaad oran? fikirkayga ugu dambeeya Soomaali waxaan oranayaa horta sideeda bannaan electionka hadda jira oo waddanka ka jira iyo baddan inaanan qof Soomaaliya oo muwaadin oo islaam inuusan isku darin oo laba laga kala dhigo. laba way wixii election qofkii Ilaahay qoray meeshaan imaanaya. aad iyo aad wixii baddeena ku saabsan mucaarad iyo muxaafid iyo shacab iyo mid hadda dhalanaya xaq buu u leeyahay inuu gaado. aad baan kuugu mahad celinayaa sida aad barnaamijka uga qayb qaadatay adigoo daawadayaasha Universal TV ka mid ah. waa mahadsantahay walaal Universal TV adiga waa idin salaamaya iyo dhammaan dadka daawanaya. wahagaag daawadayaal waa telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala London iyo barnaamijka dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. fikirkaaga fayow ka dhiibay sidaad u aragtid diidmada dawladda Soomaaliya ay diiday in dacwadda dib loo dhigo dhinaca badda. laynka telefoonka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقب دقيقة سلام يا برنامج قرآن أيان قريب قال هيد عن جواد القوتي هيه مقعد هو حسن سودو هيه مركا هدان فكر كي كديفتو مانتا إن دعوة بدأ الصومالية أي كان يخدم أحسن تهاي إنا وحن عدينا لك مانتا عدينا يا عن مانتا وشيء يا هالكن لايف كان كجرو in badda ay Kenya ku doodaysa ay Soomaaliya leedahay inaan lahayn waxa caddeeyaba waa la joogay oo daweecadahay laakiin waxaan qabaa anigu in ay dad maaragtay jeebka iyo maaragtay maaliyad doonaya oo ma ku sheega Allah musta'an waxa la yiraahdaa dacalosho shaqaystooyinka ayaa riixaya oo ka dambeeya macnaha murankan badda oo Kenya gacan siinaya. markaas dadkaas anigoo mid kale tooranaya waxaan leeyahay war walaalayaal dib ay isku celina anagu maanta reejiw dadaan nahay horta nabadan hayna waxaan jeclahay maanta ku caana maalayo inay Soomaalida ku dhaqan Muqdisho ay sida ugu caana maasho aynan mid qarax ka dhicin waan jeclahay oo rajo weyn ma ka qabaa. marka waxaan doonayaa inaynan gelin fawdo inaynan gelin buuq ay dhulkooga aaminaan ay dhulkooga risadaan inaynan cadow aynan marnaba ma ku sheega u xaqlin macnaha waad fahmaysaa. marka dadka taabaan u sheegayaa marka wax walba waad arki karaysaa laakiin xasan waxaan u sheegayaa kuwana inay dawladooda ay mar walba xajistaan aynan de cadowga gacanaysiin. marka anu waxaan jeclahay in dawladda farmaajo ano mar walba ku celceliya ay soo laamato sababtoo waad la socotaa waxa dhacaya. marka war iftiin buu wadaa farmaajo guul buu wadaa farmaajo marka haysta walaalahayow. mahadsanid xasan adoo Jabuuti jooga aad baan kaaga mahad celinayaa fikirkaaga. laynka kale ee telefoonka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. هلو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو دhow magacaaga halkaa joogto walaal. magacaygu waxaa la yidhaahdaa cabdiamiin oo birmingham oo ku magac dheer alla yaqaan. alla yaqaan aad baad u mahadsantaha waa wax fiican maasha allah. haye ka waran arrinta badda ma la socota adiga? arrinta badda aad iyo aad baan ula soconnaa waxaan halkan ugu mahad celinaynaa madaxweyne xasan sheekh oo badda arrinkeedii noo bilaabay oo noo furay. si fiican. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. si fiican. marka arrinka kale oo hadda maanta soo kordhay oo wasiir dubad oo akrinayay kulleyba qof kastoo Soomaaliya ama raas gamboon ilaa raas caseer waa ku faraxsan yahay in baddooda ay dhacsadaan laakiin waxaan leeyahay wasiir dubad weligaa allaha marka ummadda u hadlaysid waxa u hadlaysaa muxaafid iyo mucaaradba badda ummadda Soomaaliyeed cid raalli ka ah ma jirto inay siiso Kenya. aad iyo aad. marka aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa dadkii ka soo qayb qaatay laakiin dawladda hadda joogta waxa weeye markii saddexaad ay dib u dhigayso hadda dib u dhigistii ayay ka xanaaqsan tahay oo leedahay maxaa dib loogu dhigayaa. 4 mar oo kale oo Janus soo maray Soomaaliya oo ay lahayd guul baan ka gaari doonaa arrinka badda waxaa dib u dhigay oo waliba cid iska lahayd dhankayaga dawladda Soomaaliya. aad iyo aad maxaad rajaynaysaa hadda? maxaad rajaynaysaa hadda alla yaqaanow? hadda maxaad rajaynaysaa? hadda waxaan leenahay doorashada maanta socotay iyo badda waxba shaqaa iskuma lahan waxaan leenahay dadkii loo xil saaray oo awalba ku doodayay badda oo aqoon-yahanada ahaa ayay u taallaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan uga guulaysano baddeena. aad baa u mahadsan tahay. dowladduna yaysan ku qasin arrinka doorashada. aad baad u mahadsan tahay hala kala ilaaliyo dad baa hore u yidhi adiguna waa tiri waa mahadsan tahay. laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. oo kusoo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid. walaal magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed oo jooga Koonfur Afrika Pretoria. Pretoria joogta wadanka naga kaliya naga xeeb dheer baad joogtaa Koonfurta Afrika. ka waran xeebtani iyo dacwadda ma la socotiin mise mashquul baatiin? aad iyo aad aan ula soconnaa wadankii iyo Kenya iyo Soomaaliya badda aan isku haysano run ahaantii baddani waxaa gacanta u gashay cadow run ahaantii dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdii Xasan Sheekh labaduba waxaan leeyahay laba dawladood oo aad iyo aad badda Soomaaliya in dacwadda la geeyo dawladna waxay geeday badda dacwada dawladina xoogay saartay ma garad aad iyo aad way dadaaleen labaduba aad leedahay labaduba way dadaaleen labadooda mid aad lama jiro marka dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo run ahaantii waxay isku dayday in ay Kenya si fiican badda ula dagaalanto oo ay cadowga naga qabato laakiinse waxaan aniga eedda siinayaa mucaaradka oo ka gaabshay. laakiin arrintaa ma dhihi karno sababtoo mucaaradku ereygan mucaarad horta marka la fiiriyo iyo hadda raggii hadlaya oo ka horreeyay waxay yidhaahdeen arrinta mucaaradnimada iyo arrinta doorashada iyo arrinta badda ha la kala daayo oo baddu ha noqoto arrin loo wada dhan yahay ama mucaarad ama maxaafid. tan doorashadu waa gaar marka muranka siyaasadeed xagga la iska dhigo qof kastoo Soomaaliya miyaan laga rabin inuu u heliyo dalkiisa iyo dadkiisa? qof walba oo Soomaaliya gabar iyo wiilba waa laga rabaa inuu dalkiisa u heliyo haatan waxaan leeyahay aniga oo aan aaminsanahay in Soomaaliya ay isku daydo shacabka Soomaaliyeed oo ay iska dhigaan mucaarad iyo muxaafidba oo loo wada jeesto in baddan aan soo ceshano dib u dhigida loo dhigay ballankii lagu ballansanaa oo Kenya ay cabaadaysana in Soomaaliya aysan yeelin oo aan iska qabanno Kenya oo insha Allah tacaala waa ka guuleysanaynaa cagma dhigow waxaan leeyahay barnaamijyadan oo kalena si fiican u qaba ma garad aad iyo aad haddii alla yidhaha aadaa u mahadsan tahay adigoo South Africa jooga telefoonkan xiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halo ha soo dhawow waa dhowahay cabdi xashaag badhiga waa ku salaamaya walaal su-aalaha wala socday doonayana waqti badanna kaa rido ra'yigaygan ka dhiibanaya su-aasha aad dadka weydiinaysay ee badda Soomaaliya iyo maxaad ka qabtaa in dacwadda yaa la ka dhigaya dib loo dhigo runtii waxaan leeyahay waa nasiib darro weeye in mar kalena Kenya codsato dacwadda dib ha loo dhigo laga yeelo waxaan anigu runtii ra'yigaygu yamaan soo jeedin lahaa inaanay dawladda Soomaaliya aanay yeelin in dib loo dhigo haddaad iga ogolaato waxaan uga gudbi lahaa hal tacliiq oo kale oo ku saabsan guud ahaan Soomaalida khaas ahaan Soomaalida koonfurta anigu waxaan Soomaalida waqooyiga waxaan odhan lahaa runtii waxa weeye bad iyo berri bay labadaba doonaysaa Kenya dalka Soomaaliya inay qaadato dawladda shisheeyana way ku taageerayaan adiguna waxaad tin aqoon-yahan oo wariye ah waad arkaysay jariiradaha ka soo baxaa sharqul awsad waxay qorayeen
marka run ahaantii waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed koonfurta soomaaliyeed khusuusan mahmahdii wasiir dube nimaan kuu rarayn nimaan kuu furayn iyaanu kuu rarin waa nimanka u sacabaynaya haddaa la ka dhigayay dawladda la tiigsanayo waktigii baa ka dhammaadiyey dawlad maaha waxaa ka mida raggii lugta u ahaa ee bixiyey haddii alla ka dhigayay waktigii iyagu xilka ay hayeen dawladda waxay dalka soomaaliya berigiisa iyo berdiisaba haddana hoggaanka u ah oo dana shakhsiyadeed oo gaar ahaaneed oo iyagoo ku kooban dhaafsanaya dalka soomaaliya berigiisa iyo berigiisaba marka waxaan ugu baaqi lahaa dadka soomaaliyeed khusuusan dadka koonfurta maanta waxa ay ku nool yihiin waxay u baahan yihiin inay hore uga sii socdaan inay iska gartaan kuwa dib u celinaya meeshay ku wadaan aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga dabcan dad badan ayaa daawanaya dhegaysanayay oo dabcan ka bixin doona faallo ku habboon telefoonka ugu dambeeya iyo barnaamijka dacwadda badda soomaaliya iyo kenya iyo caawa iyo universal t v asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu halo halo salaamu calaykum walaal qofkaasi t v-ga ayaa u shidan cagta 2 ayaa u shidan cagta 1 ma ismaqlayaan waan ka gudbayaa qof kalaan siinaya fursadda asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aad baan kuu soo dhaweynayaa t v-ga gaabi walaal magacaaga ha walaal ha t v-ga gaabi ra'yigaaga soo gudbi ra'yigaaga soo gudbi walaal ra'yigayga haddaan ka hadlo waa axmed oo kasoo hadlaya wadanka congo inta hadda rag dad badan iga horreeyey ay ka hadleen hadda saaro badan dad badan iga horreeyey ay ka hadleen inta badan hadda inta dad iga horreeyey ay ka hadleen marka arrinta badda iyo arrinta doorashada inay laba kala taan qabaa sidii dadka iga horreeyey ay sheegeen si fiican hadda dowladdii sheekh maxamuud badda way bilowday dowladda hadda farmaajo say u timiday 3 jeer unbaa dib loo dhigan malaynaa maaqan 3 jeer macmaa dib loo dhigay marka dhaliishii anigu waxaan usoo gudbinayaa dowladda hadda jirtaa waayo mar haddii dib loo dhigay mar labaad dib loo dhigay mar saddexaad haddana in dib loo dhigay haddana waxa waaye maxay taantaa dowladda manayna ma dhici kartaa xagga maxkamaddu inay xeerinayso arrimo badan oo ay kenya soo bandhigtay dabcan soomaaliya markii loo soo bandhigana ay u aragtay wax jiri karaya arrintaa ka waran say kula tahay halo waagaag waan ka xumahay congo ayuu joogaa waa africa laynka telefoonka ma fiicna laakiin ujeedkiisu waxa uu ahaa inuu muujiyo in dowladda soomaaliyeed inay yeesho 3 jeer aysan ahayn markii horeba la diido ayaa fikirkiisu daaran yahay aad baad u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijkaani ma noqon doono barnaamijka keliya ee ku saabsan arrimaha dacwadda badda barnaamijyo kale ayaan soo gudbin doonaa dad arrimaha xeerarka caalamiga ee badaha wax ka yaqaan ayaan casuumi doonaa istuudiyaasheena ama muqdisho ama london waxaynu eegi doonaa go-aanka lafteeda diidmada soomaaliya ay diidda iyo maxkamadda haig waxa ay ka tiraahdo iyo arrimahaasi oo dhan waxaan u mahad celinayaa inta soo hadashay waxaan ka cudur daaranayaa dadka laynka culayska uu ka gaaray ama aan soo hadli karin laakiin barnaamijyo kale ka qayb geli doonaan barnaamijka waxaa soo saaray cabdulla cumar madhiir waxaa farsameeyey cabdixakiim alfaqi waxaa soo gudbiyay anigoo maxamed axmed xaaji cagmadhige intaan u yarhay intaan u weyna inta jinkaiyo daawal yaroo dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu